بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى أنا مقعي ليرادو توكل يوسف إسماعيل أهنا قدوميها تاكس فورسيغا. موضوع إنه ما أنت وحوي وحكت المامين وحوي برنامج كان هذا أركتان وشاشة كو أركي دونتان دتك وايلكا يدتك باهيها جار كله أو لقودينيو وبيشان أنت دتك يكو حير يعني قريه ذي جوجين راشين كقريها اللوجو جينيه راشين كوفيلان وحوي أفرنا هذا مركو هران راشين قضاء عنيجرين سدح بقول أوقف ayaanu raashinkaas qiyaastii gaarsiinaa subaxiina waxaanu ku darnay caruurta iyo waxyaabaha dadka maaragtay aanan aadi karin banaanada aan aadi karin in la quudiyo. Mashruucan wuxuu ku yimid initiative ay sameysay Daarul Xadiith oo kamid program non profit organization kadibna waxaa kala soo qayb galay hay-ada waaweyn oo foundation sida Blue Cross Blue Shield, Minneapolis Foundation, GMC, Minnesota Food Share iyo dad kale oo mutatawiciin oo waxa weeye aan Soomaali ahayn ayaa waxa weeye partner ila noqday barnaamijkaasna dadka si aynu ku gaarsiinano waana wadi doonaa insha Allah taala ilaa bisha laga gaaro waana wax diinteenu ay nafarayso maxaa yeelay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam in community-ga loo khidmeeyo dadka loo shaqeeyo dhibaatadooda gaarka laga shaqeeyo way ka qiimo badan tahay qofka cibaadada salaada uu sameeyo arkaanta islaamka kamid anfaceeda isaga kaliya u soo noqonaysa laakiin waxa bulshada loo qabanayo oo loogu khidmeynayo ajirkeedu wuu ballaaranaanaya sidaas uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam su'aal waxa la weydiiyay ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka uu ugu jecel yahay amal la qabtanayo ugu waxay rasuulku ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam ilaahi subhanahu wa ta'ala dadku wuxuu ugu jecel yahay anfacum linaas ka dadka anfaca cilmigiisa aqoontiisa kartidiisa dadaalkiisa dadka ku anfaca amal la qabtana wuxuu ugu jecel yahay suruur iyo farxad qof muslina qalbigiisa aad gelinaysa gaajo iyo culays dhib haysa aad ka dulqaadaysid inaad la khidmaysid oo waxa uu san qabsan karin kala khidmaysid baa rasuulku wuxuu yiri waxaan ka jeclaa inaan qofka walaalka xaajaadkiisa dantiisa kala shaqeeyo inaan bil masaajidkayga aan fadhin waxaan ka jeclaa inaan dadka la shaqeeyo xaajaadkeeda la shaqeeyo aad baanan uga mahad celinaya hay'adihii foundationada iyo dadkii walaalaha ee volunteerka ee cuntadaas qaybinteeda ka qayb qaadanaya guriyo badan oo dhowr iyo 10 guriyo ayaynu geynaa shaashadan ka arki doontaan nambaradooda marka aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa in la iscaawiyo gacanta la isqabsado almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da abu nabiga sallallahu alayhi wa sallam yiri xaaladan adag cudurka iyo dhibaatooyinka ay jiraan waxa way ummaddu waxay kaga bixi kartaa inay gacmahooda isqabsadaan inay wada midoobaan in kan wax qabsan loo qidmeeyo loo adeego guriyaha loogu tago. I feel very connected to it because I have a mother and I seen how they need the help out and I can imagine what other folks that don't have their kids with them what they're going through. mashruucan markii hore maalin buu ku socday oo qadadaanu bixin jirnay oo guryahan u geyn jirnay dadka waayeelada iyo dadka disability-ga baahida gaarka qaba maadaama soon ay noqotay kadib baan u bedelnay cunto iyaga waxa weeye anfacayso cunto Soomaali oo nafaqana u leh protein u leh waa qudaar waa hilib salad ba ku jiro waxa ku jiro malawax ba ku jiro waa cunno adigu dadka waaweyn loogu talgalo maaragtay sida dhaqanka Soomaalida cuntada caadiga ah oo afurka aan ka sameeyay jirnay timirtii mooskii cabitaankiina wixii dhan baa ku jiro waxa mahad iska leh ilaah kadibna sheekh ama imaam tawakkal oo arintan ilaa iyo intii arintan masiibada dhacday maaragtay dadkaas waayeelada masaakiinta ama culiyaamada u kaalmeynaya ama uga shaqeynayay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa Somali American Media oo iyagana qayb weyn ka qaatay barnaamijyadan la idin soo bandhigaya iyo barnaamijyada wacyigelinta dadweynaha oo waxyaabaha hadii laga caawinayo inay buuxsadaan dadku meelaha ay u baahan yihiin dadka small business-ka dadka waxa weeye shaqooyinka gaarka loo qabanayo foomamka loo qabanayo qaybta media waxa weeye qayb weyn bay ka qaateen marka aad baan idinkaga mahad celinayaa aadna ku mahadsantahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka abaalmariyo.